dad gadowsan ayaa dalka Pakistan ku dilay in la sheegay inuu gubay qayb ka mid ah kitaabka Quraanka Kariimka ah. Dhacdadan ayaa ka dhacday deegaanka Khuniwal ee gobolka Ranjab, waxayna ahayd goor fiidnimo ah kolkii wiil uu dhalay imaamka masjidku uu dadka u sheegay in nin halkan kitaab uu ku gubayo. waxaana loo wacay booliska si ay wax uga qabtaan arrinkani, balse dad gadowsan oo goobta ku soo xoomay ayaa ninkii gacantooda ula tagay iyagoo dhagax la dhacay isla markaana meydkiisa ka soo laalaadiyey geed. dadkan ayaa ku doodaya in uu ninkani meel kaga dhacay muqaddasaadkii la xurmayn jiray, taa aawadeedna uu mudan yahay in la kharajiyo. booliiskii goobta ku sugna oo tiro ahaan aan badnayn oo isku dayay in ay badbaadiyaan ninkan dhagaxa lagu dilayo ayaa taas awoodi waayey, iyagoo qaar askarta ka mid ahna la dhaawacay. waxaana tani ay dhalisay cadho aad u badan iyada oo dawladda Pakistan falkaasi ku tilmaantay mid bahalnimo ah oo baalmarsan xeerarka dalka iyo weliba diinta Islaamka. qoyska ninkan dhagaxa lagu dilay oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ninkan uu maskax ahaan jirana oo aanu caadi ahayn 10kii sano u dambaysay. booliiska ayaa sheegay in xabsiga laga buuxiyey ugu yaraan 10 ruux oo ka mid ahaa dadkii goobjooga ka ahaa falkani. ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan oo arrinkan si cadho leh uga falceliyey ayaa booliiska iyo laamaha baadhista faray in maxkamad la soo taago kuwa gacmahooda ku qaatay sharciga oo ula jeedo dadka dilkan geystay. waxaana baraha bulshada ee dalka Pakistan qabsaday hadalhaynta arrinkan. muuqaal goobta dilku ka dhacay laga duubay ayaa muujinaya dad tiro badan oo booliiska xoog ku muquuniyey isla markaana ninka dhagaxaan la dhacaya. waxaana falkan lagu tilmaamay mid aan sinaba u bannaanayn oo laga baaqsan karayay maadaama boolisku goobta joogeen isla markaana ay diyaar u ahaayeen in ay ninkan gacanta ku dhigaan. ninkan la dilay oo ahaa nin masiixiya oo da'diisu ahayd 40 jir ayay qoyskiisu ku doodayaan inuu ahaa 15kii sano u dambaysayba nin madaxa ka jiran isla markaana xanuunsanaa. dadka reer Pakistan ayaa lagu tilmaamaa dad xagga diinta ku adag, iyadoo bila ka horun ay ahayd markii la gubay inuu dhashay dalka Sri Lanka, kaas oo lagu eedeeyey inuu gidaar ku xardhay aflagaada ka dhan ah diinta Islaamka.